waxaan doonayaa in dadka Soomaalida ka salaamo maanta aanan in yar ka warramo shirkii IMF-ta ama hay'adda lacagta adduunka shalay ka dhacay magaalada Washington kaasoo lagu soo gabagabeeyay halka IMF-tu ka taagan tahay ama hay'adda lacagta adduunka ka taagan tahay deyn cafiska geedi socodka Soomaalida deyn cafiska oo loogu talagalay inay tis qaado bisha labaad ee sanadkan oo soo socda February shalay shirka wax wanaagsan ka soo baxay waxa ka soo baxay wixii inagu aan filaynay haddaan Soomaali nahay oo ahaa Soomaalida geedi socodkeedii si fiican buu socdaa waqtigii loogu talagalay buu marayaa waxaana la isku wada deeyaa dadaal weyn iyo xusub duubna loogu jira in bisha labaad marka ay gaadho Soomaaliya deynta laga cafiyo Kristalina Georgieva waxa weeye gabadha ka madaxda ah hay'adda lacagta adduunka IMF-ka shalay markay shirka ka soo baxday shir jiraayad oo kooban bay qabatay waana wada aragteen intiina badan waxay ku saabsan tahay marka waxa weeye sida u fahamteen in aad iyo aad ugu hanweyn yihiin hay'adda lacagtu sida aanu soo shaqaynay iyo halka Soomaalidu soo gaadhay iyo sida adduunka ula soo falgalay iyo sida wixii inaga la inooga baahnaa aan u fulinay una boojinay waxaan dadka Soomaalidu sheegay waxa weeye wali waxyaalo yaryar baa nagu dhiman oo aan dhamaystirayna hadii Ilaahay yiraahdo ilaa aakhirka bishan 2 week baa noo haray waxaanan aad iyo aad dadaal weyn ugu jirnaa madaxda dalkan ugu jirtaa waxa weeye inaan soo dhamaystirno waxa anaga la nooga baahan yahay waxa aan doonayaa inaan isla ogaano adduunka dadka lacagaha inagu nooc bay kala yihiin nooca ugu sareeya waxa weeye nooca la yiraahdo IFIs-ka ama hay'adaha lacagta World Bank adduunka Banka Africa Islamic Bank iyo IMF-ta weeyar ayaa ugu sareeya hay'adda lacagta adduunka marka qolo waliba sida lacagteedu u dhaafi lahayd oo lacagood ay u dhaafi lahaayeen ayaa taladeeda la hayaa group waliba sidoo lacag u dhaafi lahaa deynta ayaa la hayaa IMF-ku marka shalay waxay soo gabagabeeyeen habkii ay u dhaafi lahaayeen World Bank hore loo soo gabagabeeyay banka adduunka hore loo soo gabagabeeyay African Development Bank waa la soo gabagabeeyay Islamic Development Bank oo lacagtiisu aad ba u yar tahay waxaan doonaynaa in Islamic wadanada le bankali in iyaguna arinta galaan waana gelayaan laakiin kuwii ugu waaweynaa hay'adaha ugu waaweynaa World Bank banka adduunka African Development Bank iyo IMF waxaan nasiib wanaaga aad noogu faraxsanahay in arintoodii gabagaba tahay gabagabana ku soo dhamaanayso waxa kale oo aan idin sheegay marka waxa weeye dad Soomaaliyeed in bisha labaad marka la gaadho deyntii la cafinayo